haweeney u dhalatay dalka New Zealand ayaa lagu qabtay kiis la yaab iyo amakaa ku noqday booliska iyo dadweynaha dalkaasi u dhashay iyo dunidaba. haweeneydan ayaa boorso ay wadatay waxa ay kusoo dhex riday gabar yar oo 2 sano jir ah iyada oo la saarnayd bas ku socday magaalo ka mid ah magaalooyinka waddanka New Zealand. haweeneydan oo boorsadan baska la soo raacday ayaa waxaa ka shakiyay darawalkii baska kadib markii dhowr jeer uu haadka ka arkay boorsada oo nuxnuxsanayso. darawalka oo dhowr jeer arkay boorsada oo nuxnuxsanaysa shakigiisana sii ballaartay ayaa baskii meel dhexe ku hakiyay waxa uuna furay boorsadii ay haweeneyda watay waxaana boorsadii kasoo dhex baxday gabar yar oo 2 jir ah taa oo aad u dhididaysa kuleel badanna oo ka muuqdo. waxa ayna boolisku sheegeen in gabadha yar ay caafimaad ahaan wanaagsaneed ha yeeshee ee aad u hurtay una dhidatay kuleel badanna uu jirkeeda ka muuqday. haweeneydan ayaa lagu qabtay meel 100 kiiloomitir ka xigta deegaanka Auckland ee dalkaasi New Zealand. booliska oo loo yeeray markiiba ayaa goobta soo gaaray waxa ayna arkeen gabadhan yar oo 2 jirka oo aad u dhididaysa kuleel badanna uu jirkeeda ka muuqdo ha yeeshee caafimaad ahaan aad u wanaagsan. taliyaha booliska Simon Harrison ayaa sheegay in gabadha yar ay caafimaad ahaan u muuqatay in ay wanaagsaneed ha yeeshee waxa uu intaa ku daray in ay u direen isbitaalka si baaritaano dheeri ah loogu sameeyo caafimaadkeeda xaaladeeda caafimaadna wax looga ogaado loona kontaroolo. haweeneyda 27 jirka ah ayuu boolisku sheegay in ay xabsiga u taxaabeen waxaana lagu soo waramayaa in maxkamad loo soo taagi doono kiisas kala duwan oo ku saabsan carruurta taa oo ay ka mid tahay dayacaad iyo waxyeelaynta carruurta. haweeneydan ayaa hadda waxa ay ku jirtaa xabsiga waxaana ku socda baaritaano iyadoo lasoo taagi doono maxkamadda sida uu boolisku sheegay. booliska ayaa si aad ah ugu mahadceliyay darawalka baska wada ee ka shakiyay haweeneydan iyo boorsada ay wadato kaa oo ay sheegeen in uu badbaadiyay nafta gabadhan oo haddii ay kusii jiri lahayd boorsada xaalad taa ka halis badan sii geli lahayd. halka ay wararka ugu door karoon idinkaga imaanayaan waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway waxaana idinla socodsiinayay aniga oo Cabdullaahi Shiine.